Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal meel kastoo joogtaan dadka qaar ayaan aaminsanayn in la maamuli karo jacaylka halka qaar kale aanay aaminsanayn inaad qof si sahlan jacayl uga abuuri karto haddaba halkan waxaan kugu hayaa 9 qodob kaasoo qof kasta jacayl uga abuuri karto Number 1 tus qofka inaad la mid ahayn qofka ay hore wada socdeen dadka badankoodu waa ay bedelaan dookooda iyo shuruudahooda ay ku doonayaan qofka xiriirka la wadaagayaan kadib marka xiriir hore oo ay lahayn uu ka xumaado Number 2 faham baahiyaha nafsiyeed qofka qof walba waxa uu leeyahay baahiyo nafsiyeed oo u gaar ah waxaana uu aad u danayaa qofka fahma mar kasta 3 qiimahaaga kor u qaad dadka labadiinuba saaxiibka la tihiin ha kaaga hadlaan oo ku amaaneen si cajiib ah markaad maqan tahay waayo dadku waxay u malaynayaan qofka aad qiimihiisu u sareeya inuu yahay qofka la amaano markuu maqan yahay 4 badanaa ha lagu arko cilmi baaris ayaa caddaysay in dadku ay ka doortaan dadka xidhiidh kala sameynayaan badanaa qaar ka mid ah kuwa ugu aragtidooda ugu badan yihiin kuwa aan muddo la arag waxay qofka ku keentay inuu iloobo qofkii 5 iska dhig qof aan la fahmi karin inta badan ee aan dareemadaada la fahmi karin waxay badinaysaa in dadku wax badan ka fikiraan inta badan ee qof wax badan ka fikiraana waxay badinaysaa in qofkaas kugu soo xidhmo 6 badanaa dhoola cadee haddii aad gabar tahay haddii aad nin tahayna wax yar dhoola cadee cilmi baaris ayaa caddaysay in raggu door bidaan dumarka wejiga furfuran leh xagga ay dumarku door bidaan 7 qofku waxa akhrisan sida ay dabeecadihiin iskugu eg yihiin markasta oo aad ogaato dabeecad aad labadiin wadaagtaan waa iskay mid ka tihiin oo ah dabeecad fiican la wadaaga oo usha qofka haddii dhowr waxyaalood oo iskay mid tihiin jiraan wax laga yaabaa inaad qofkaas beegsanaysaa uu bilowbo inuu maleeyo in labadiina la isku kiin tala galay 8 isqar marka lagu xiiso tan waxay ku qasbaysaa in wax badan qofku ka fikiro waxayna dedejin doontaa in qofkaas kugu soo xidhmo 9 si aan toos ahayn qofka isku tus dadku waxa xiiso rida oo ay neceb yihiin dadka tusiinta ah taas beddelkeedu waxay jecel yihiin dadka aan sida tooska ahayn isku tusa tusaale ahaan haddaad imka haysato gaari ha isku day inaad gaarigaa tusto laakiin taa beddelkeeda waxaad ka dhigtaa inaad tusto furaha gaariga asxaabay maanta barnaamijkeeni intaasuu noogu egyahay waa inoo muuqaalka xiga